bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaad la wadaago wax la yiraahdo wax bariyii dambe dhalinyaradu ay ka shaqaysanayeen oo loo yaqaano blogging waa mid ka mid ah aaladaha casriga ah ee maanta dunida looga shaqaysto waxa uu la mid yahay YouTube-ka waxaana iskale shirkadda Google-ka oo bixisa lacagta YouTube-ka laga qaato marka blogging waa barnaamijkan aad u jeedaan lacag fara badan ayaa dhalinyaradu ka samaysaa marka YouTube-ka marka loo eegana mararka qaar inuu ka lacag badan yahay ayaa dhici karto shuruudaha marka loo eegana waa aad ayuu aga shuruudo fudud yahay marka aan fiirino Google-ka aan galayna halkan waxaa inoogu qoran halkan haddaan fiirino which is better blogging and YouTube yaa wanaagsan YouTube iyo blogging marka waxay leedahay if you have written more than speaking and camera in the blogging will be better choice haddii aad rabin inaad camera iyo microphone hoos hor fadhiisato waxaa wanaagsan leeyahay inaad maxaa yiraahdaa yeelato ama aad samaysato blogging sidoo kaleeto waxaa kaleeto halkan jiro wax la yiraahdo yaa fiican in la bilaabo blogging iyo YouTube markasta waxaa lagula talinayaa dadka dhalinyarada sanadkan 2022 inay bilaabaan wax la yiraahdo blogging oo ah barnaamij aad lacag badan ka sameyn karto adigoo maqaalo iyo qoraallo ama warar iyo barnaamijyo wixii markaas adiga aad taqaano aad ku soo bandhigayso website-kaada marka dhalinyaro badan ama barnaamijyo badan oo ama website Soomaaliya ayaa jiraan oo ka shaqeystaan haddii aan fiirino website-ka la yiraahdo caasimadda online waa website-kan caasimadda.net caasimadda.net waxa u furan wax la yaqaan AdSense markaad furato blogging ama website-kaada aad samaysato waxaa dalbanaysaa wax loo yaqaano AdSense oo ah lacagta ay bixiso YouTube-ka lacagta ay bixiso shirkadda Google-ka waana lacagta laga qaato YouTube-ka oo kaleeto marka shirkadda bixisa lacagta YouTube-ka ayaa lacagtaana bixisa marka haddii aad rabto inaad samaysato waxaad furanaysaa waxa la yiraahdo AdSense oo xayeysiimahan ayaa page-kaada ama website-kaada la soo gelinayaa kadib xayeysiintii kiligta lagu dhufto ayaa lacag fara badan ku qaadan doontaa marka waxaa sameynaynaa wax la yiraahdo qaabkii marka u samaysan kartaa marka aad rabto inaad samaysato wax la yiraahdo blogging wax weyn ma kaaga baahan marka hore waxaad u baahan tahay inaad leedahay Gmail oo kaliya inaad leedahay ayaa lagaaga baahan yahay marka waxaad samaynaysaa tab cusub aad furayna halkaas waxaa ku qoray qaybta searching-ka ee Google-ka waxaa ku qoraysaa waxa loo yaqaano blogger.com ayaa leedahay markaad blogger.com tiraahdo kadib waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay create your bloggaaga abuuro ayaa lagu leeyahay blog ayaa abuurayna markaad rabto marka waxaa kuu soo bixi doona Gmail-kaada marka waxaad dooranaysaa kaliya Gmail-kaas ayaan sameeyay si markaas aan casharkan ugu sharxo xogdoon ayaan u bixiyay waa ku dhufanaynaa kadib waxaa halkaas gelinaysaa passwordkaada ayaa gelinaysaa kadib waxaa markaasi sii gudagali doontaa inuu kuu shaqeeyo wax loo yaqaano blogging-kaadii isagoo oo maxaa la yiraahdaa bilaaban doono marka halkan waxaa lagu yiri waxaad ku qortaa title-ka ama website-ka aad abuurayso magaca aad u bixin doonto haddaba waxaa u bixinaynaa xogdoon waxaa u bixinaynaa xogdoon ayaa u bixinaynaa website-kan xogdoon ayaan u bixinaynaa waxaan rabnaa inaan warar iyo barnaamij ku soo bandhigno waa ka soconaynaa halkaas mar kale ku qori doonaa xogdoon oo ah website-kan magaciisa kadib waxaan leenahay wuxuu diidayaa wax la yiraahdo capitalka xogdoon markaan dhahno xogdoon waa la haystaa 12 ku darayna oo qaatay xogdoon 122 next ayaa leenahay halkaas sidoo kale waxaa ku qoraynaa magaca uu ku soo bixi doono website-kaaga magaca uu ku soo bixi doono website-kana waxaa ku qoraynaa waa xogdoon ayuu ku soo bixi doonaa kadib waxaa leenahay finish
finish ayaa leenahay kadib waxaa hadda markaas inoo abuurmaya ama automatic inooga abuurmay oo website-keenii aan abuureynay oo aan ugu magac darnay xogdoon. marka qaybtaas ayaan rabay inaan idinla wadaago. website-kan waa sii dhammaystiri doonaa mid mid ayaa u dul istaagi doonaa isagoo casharo taxana ah, balse haddii aad channelka cusub tahay fadlan subscribe dheh oo like share page-keena waad mahadsantihiin. haddii aad danaynayso in casharadan iyo barnaamijyo kaloo xiiso badan fadlan kusoo biir groupka telegramka oo linkiga hoose qaybta subscription-ka aan idin dhigi doono. Asalaamu calaykum.